طبعا wanaagsan saaxiibaal halkan waa channelka Hubinta Wararka dad ku cusubtay channelka subscribe saar like na saar muuqaalkan si uu sii gaaro dad badan oo kamid ah asxaabteena wad ku mahadsantahay jaanqaadkaaga maanta taawad waxaan ka hadli doonaa fanaanka caanka Qamar Sugaan oo soo jawaabay xaaskiisa hore ee Ogbaad Aragsan kadib markii hees ay ku karbaashtay taas oo reeb raxna ay u sii raaciyeen hadal saameyn ku yeeshay isla naftiisa iyo taageeriyihiisa meel kasta jooganba sidoo kale reeb raxo صح عايزة في عنها ما شاء الله ربع وحكوا ده ربع كل دعاية بدن أنا تلقى السلامية وحينها قمرية الشدة oo lagu yaqaan runtii in dad aad u kaftan badan yihiin iyo dad aad u shactirooyin badan ayaa runtii fanaanka Qamar Sugaan ku sheegay u bixiyanaanaysa qamar iyo shaydaanba way degdegaan maadaama xaaskiisa hore Ogbaad Aragsan ay hees ku soo karbaashtay soo kale fanaanka Qamar Sugaan ayaa sheegay in reeb raxay yihiin runtii dad aad u wacan oo kaftankooda iyo majaajiloonkeeda runtii aad uga helo sidoo kale isagoo sheegay muuqaal yar laga soo duubay sheegana in reeb rax ka qalay maadaama uu yahay fanaan Soomaaliyeed fanaankoodina uu yahay fanaanka sanadkan uu yahay dhalinyarta aad u jecelin inuu ka xiraan oo runtii ka teediyaan hadaba maadaama runtii aad baalaha uga rafaan hadaba Qamar Sugaan iyo runtii Ogbaad Aragsan waxay ahaayeen markii hore xaas aad isku jecel أنا تلقى السلامية وحينها قمرية الشدة صح عايزة في عنها ما شاء الله ربع وحكوا ده كاديغور runtii way calafkooda ayaa kala dhamaaday laakiin sabrihii ugu dambeeyay Qamar Sugaan iyo runtii Ogbaad Aragsan aad ay social media saameyn ugu yeesheen kadib markii fanaanka caanka Qamar Sugaan iyo Ogbaad Aragsan ay noqdeen laba fanaan oo runtii Soomaalida aad u jecelin inkasta ay haataba Qamar Sugaan iyo Ogbaad Aragsan waxay kala tagaan midba xaas bu gursaday Ogbaad Aragsan waxay gursatay Ilyas Idris oo ah wiil Soomaali musician oo xaggaas iyo soo Djibouti soo kale fanaankan Qamar Sugaan kadib markii uu nasin sooran gursay isagana waxa ka soo muuqatay in uu ka baa walwalkii iyo runtii walbahaarkii hadaba halkaas uu runtii noloshiisina aad wax badan iskaga bedelan soo kale fanaanka Qamar Sugaan oo barihii ugu dambeeyay heesihiisa fanka sii galiyeen laakiin se noqday xidiga koowaad ee runtii Soomaalida u soo baxay oo runtii taas lagu xanto wiilka shanta cod isku geeyay ku heesa hadaba si kasta haddii fanaanka Qamar Sugaan oo muuqaal la soo duubay wiil signa reer Hargeysa ayaa sidoo kale sheegay in ay ka xiraan hadaba sidoo kale Ogbaad Aragsan oo barihii ugu dambeeyay heesaheedu aan inna caadi ahayn sidoo kale wali xataa aan lama hayo Ilyas Idris in hees la soo qaato intii muddadii sanadkeed isqabeen sidoo kale Ogbaad Aragsan maadaama tahay xidigta fanka himka isla waqti xadarada dhibca ugu horeysay ay ku jirto in runtii waxa laga sugayaa muusikino aad badan iyo runtii inay la soo baxdo wacdarooyin cusub oo kale sidoo kale iyadoo barteeda Facebook aflaatista soo dhaafay ku sheegtay in ay wax kala cusub soo wado sidoo kale fanaanka isaguna Qamar Sugaan ayaa sheegay in isaguna jawaab degdeg ah oo ka bixin doona arrinkan maadaama Ogbaad Aragsan xaaskiisa hore ay ku soo karbaashtay heestan daba halkan waa channelkeena Hubinta Wararka dad ku cusubtay subscribe like share comment warkiina dambe insha Allah كل دعاية بدن أنا تلقى السلامية وحينها قمرية الشدة صح عايزة في عنها ما شاء الله ربع وحكوا ده ربع كل دعاية بدن أنا تلقى السلامية وحينها قمرية الشدة